عليكم ورحمة الله وبركاته. أفيانك قرنك مستعبد جود أصحابته كوحدة حديها جيسك كحرا بهذا الصحافة ده لما أنتي محمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ها أبد وإن بدل ما نقضوين هل كان حديها جيسك كسمية نوع عيدونا بها هذا أنا بعدها اللي جسوا قتيو معدها اللي جسوا دويو تنكوا صنبا لما يتحي وأنا صنة إن ما أملك حديها جيسك يسبدلوا أنا وحنا قدوميه هو وقت قال راح حديها جيسك أفر سنين هي أفر سنين هي لبس صنّا أيوه حلكيو مركز تمحي هذي أنصح هاي أحمد لي مدة سنة تقصي منها هي أيام سيجارة وضح الله عدت بيسجى كتيمدي كدمنا أنا كواحدة يجي أنا إسلام مركان أوق علايسك يم ميسانك يم مشكلة ده يدبت أيه قامت حدوي ليهين لحش عن حديقها يم مامولك يحبنا عن قبل مرة تكون أقبله وإحنا ميسان هاي وقت يعني كم غنينا نشرهان يمسكحان يا ركتهان بنصتي لكن إحنا ميسان هاي حديقها جيسكو وحوي افتين إليس داري فنك حرفة دادا إن كو قيمة سناتها waa muhim حديقها جيسكو إنay فنكي كو قيمة سنادان ولغو احترامه aad iyo aad baan iga farxad igu tahay waxaan soo jeedinayaa in si loo xasuusto loo xuso ay halka dadaal ka sii wadaan bini aadamka ilaahay abuuray caqabadaha iyo mushkiladuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha hadii jariimaada waxa ka muhiimsan caqabadaha inay timaado wad xaliso inaad 10 ka barato haday dadku meel wada joogan waa la isqabanayaa haday dadku meel joogan waa la iska hor imanayaa haday dadku meel joogan waa la wada hadlayaa waxa la isu hayo waxa ka weyn waxa la isu yahay Maxamed Saciid Cabdi Biike wuxuu ka mid yahay xubnihii kooxda xidigaha geeska ku jiray maantana wuu fadhiyaa waxa laga yaabaa 10 bilood ka horna in kooxda maxaa laga saaray markaanu xeerka eegnay tanaasulaadkaanu eegnay ayuu ku soo noqday xeerka xidigaha geeska ka baawr weyn ama ka awood weyn xeerka xubnaha laftigooda anay hada xubnaha hayan hadal badanna halkan ka yiraahdo maanta ugu tala gelin iguma cusbo kulli maamulka xidigaha geesku baa saxaafada waxa leeyahay inta badan kelmad baan doonayaa in la buunbuuniyo oo maxay yahay dadka aan doonayeen si direct u sheego waxa dadka muhmal iyo madow kaga jira xidigaha geesku ciideeyeen ana idin leeyimka qora xidigaha geesku waa rees Soomaaliland laabsaalo xooyid inta oran lahaydeen in makaan idin leeyahay waxayna walaaleeyay dadka Soomaaliyeed afka waanu in xurmeynaa waanu idin xiiseynaa ixtiraam iyo qadarin baanu idin haynaa laakiin meeshaanu ka soo jeedno inaanu noqono hadaba u qaadanaysan in xasan dhuxul cunsuri yahay in makaan idin leeyahay xidigaha geesku waa rees Soomaaliland wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gaarana waana dadkii soo wada aasaasayna waana mursal iyo khadriya halkan kamida Axmed Wali aniga iga dulqaad badan xidigaha geeska la isku ma hayn karo maamul iyo muusik intaas oo dhan buu garsooro u yahay haddana maxay inuu maamulkii noqdaa aad iyo aad waa in adkeysigeeda lahaa culayska uu dareemay in la dareensan baan ahaa hadduu culays ugu dhaco hadduu ku dhaco kulbo kaayaga uu ku dhaco waa kii kale xidigaha geeska kelmadda ugu dambaysa leeyahay waxa weeye inta wada jirtaan aad wadartihiin ayaad hadal hayn iyo dacaayado iyo dhaliilo inta bay helaysan qof waliba intuu dadka ka tilmaaman yahay ayuu dheer yahay marka idinka laftigiina saxaafado saaxiibada ila jooga hadda aragtaan inay waxoogayd xageynayaan macnaheedu ma aha inay idin necab yihiin waa saameyntiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.